dowladda Khaatumo ayaa qadar biyo dhaamin ah soo gaarsiisay degmada Woodwood biyahaasi oo loo qaybiyay dadka danyarta ah ee ku sugan deegaankaasi iyo xoolaha jilicsan ee markaasi aan lahayn meel lagu waraabiyo ama laga waraabiyo. halkaasi waxaa ka hadlay Xasan Cismaan iyo Deeqa Xasan Raan oo ka mid ah guddiga abaaraha ee dowladdu u soo wakiilatay biyo gaarsiinta deegaanka Woodwood. annagu halkan waxaanu keenay deeq biyo ah oo inoo keentay maamulka iyaga Khaatumo gaar ahaan Barasafar Cali Khaliif Gareyd oo noo keenay biyo nooguna soo deeqay dadka iyaga tabaalaysan ilaa haddana baahidoodu ay koow aanay ahayn ay leebkii u dambeysay ay marayso waanu mahadnaqaynaa dhammaan wixii noo soo dhiibay iyo iyagaba waanu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadda iska leh madda labaad dadkani waa dad jilicsan waa dad aad u jilicsan dad iyo xoolihii waaba sii gabaabsi dadkii baa had yarto khatar ku jira أولاً إلهي بقى مهزكرة سبحانه وتعالى مركب عليه وأنا ما عندنا عملك خاتمة مدحوينها على مصر على خليفة قال يروجوه الرئيو يقضى معاونة ضايع بيها دتكاس باهن السوق قارسية أنا قلنا نوكيل كوجاهين ملاهم بيدامين تقبلوني أفرتون ملاو صان كم بريق عين بيعيد ما أنت واحد شغل أولو وأنا قبلوني بيقايبنتي وأركسان dadka ay xoolaha jilicsan biyaha u baahan booyad wax lagu soo qaadana wax ma kafin karto ilaahay baa deeqdiisa lagu kaaftoma laakiin waxay u baahan yihiin dadaal loo galo oo riig loo sameeyo iyo u soo saaro meesha tan waa meel aad u deegaan balaaran dhowr iyo 20 ku dhawaad magaaladan hoos yimaada oo joogta u dhalatay deegaanka kale dadkii kale qurbo joogta ahaa deegaamadoodii way horumariyeen riigag bay u sameeyeen xataa hadaad mid barayfada noo samaysaan oo aad naga iibisaan oo dadka ka iibisaan wax tarbay noo tahay fariintaana waxaan gaarsiinayaa qurbo joog dhinaca kale yana halkaasi waxaa ka hadlay dadkii la soo gaarsiiyay biyaha kana mahad celiyay iyagoona xukuumadda ka dalbaday in la soo gaarsiiyo riig si markaasi ay uga badbaadaan biyo la'aanta xoogan ee haysata xilligan dowladda Khaatumo madaxweynaheeda wasiiradeeda xildhibaanada biyaha deeqda ay u keeneen Woodwood iyadoo lagu tabaalaysan yahay Woodwood dhinaca xoolaha iyo biyo la'aanta waxaan ka codsanaynaa inay deeq ilaah baa deeq bixiyay inay fiig iyo biyo la soo gaaraan Woodwood dowladda Khaatumo maamulka Khaatumo madaxweynaha wasiirada baarlamaanka biyaha deeqda ay noo keeneen baan aad ugu mahadnaqaynaa maanta waad aragtaan in xoolihii iyo dhaankii iyo geedigiiba intiiba marayaan oo cabayaan waxaan u baahannahay aan dowladda uga baahannahay Khaatumo inay riig noo keento haddii ay riig la soo gaadhin ummadda aad bay u tabaalaysantahay ummadda waa Cabdi Ciro waa Bari TV Woodwood.